السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الملك استوى جوكتان ما أنت ومعلم فرحة maalintii ciida ayaa gabagaba hadda ku sugan waxaan joognaa Brooks gobolka Alberta waraysiyo badan ayaan qaadnay laakiin madax meel ka sareeyo la salaaxa ma leh gudoomiyihii jaaliyada ayaan la joognaa Yusuf Xasan ku soo dhaw madasha furan andhow waa la jaamac muddo maanan imaan Brooks aduu 20 sano ku dhawaad maanta waxaan la kulmay wax aanan filayn jaaliyad aad u ballaaran ganacsi ballaaran ciid si xoog leh loo ciidayo bal ugu horeyn dadka aan Brooks iyo jaaliyada aqoonin warbixin ka sii jaaliyada si guud jaamac mar labaad aad u mahadsantahay ku soo dhawow magaalada Brooks waxaa lagu naanaysaa lagu magacaabo inay tahay magaalada City of 100 Hollows oo ka macno ah in luqado badan laga hadlo waa magaalo tuulo yar oo dhacda koonfurta Calgary adigoo dhawaad 2 saac u jirta Calgary waxay u dhaxaysaa Calgary iyo Medicine Hat magaalada waa magaalo aad u yar dadka degan waxa lagu qiyaasaa adiga ilaa iyo 15,000 hada inay sagaareen hase yeeshee haddana immigrant badan ama dad soo galooto badan jooga annaga waxaan isku tirinaa Soomaali hadaan nahay dadka meesha degan inaan u badan nahay walow statistics badan oo annaga teena dibadda reeguraha iska nahay dadka badana Soomaalida qaybna kama noqono marka la sameeynayo marka statistics ka dastuurka tirakoobka marka la sameeynayo qayb kama noqono Soomaalida laakiin waxaan xaqiiqsanahay aan aaminsanahay ka Soomaali ahaan markay tirada iyo tayada aan ku noolay magaalada aan fiirino in dadka immigrantiga aan u badanna Soomaalida inta badan warshadaha loo shaqo tagaa dad badan oo xirfadlayaal way jiraan oo xirfad kale ku shaqeeya way jiraan laakiin 80% halkaas loo shaqo tagaa walow eedo badan iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan hadii xagga kale aan ka fiirino Soomaalida waa dad xadaarad leh waa dad business oriented ah ayadoo saa u yar iyo haddana businessyada ay ku leeyihiin iyo sida ay ugu nool yihiin way ka muuqdaan Soomaalida dhowr iyo 10 business ku leeyihiin ha noqoto dukaamo xalaalo oo Soomaalida inta badan ay sameeyaan xawaaladaha ay hayaan meel carwooyin ay leeyihiin ku dhawaad 3-4 ah way aad ugu dhaqan yihiin marka xagga businesska aad ugu fiican yahay tii Soomaalida watan Soomaalida waa dad business ku fiican waya gudoomiye Yusuf waraysiyo badan baan qaadnay muuqaalo way arki doonaan daawadayaasha magaalada saad carabka ku dhufatay ganacsiga Soomaalida uu ballaaran yahay magaalo yar duqa magaalada wuxuu noo sheegay 500 iyo xoogaa inay yihiin tirada Soomaaliduna waxay nala wadaagtay inay 2,000 iyo ka badan ay yihiin intii aan dadka la sheekaysanaynin marka ganacsiga waan u imaanaynaa tirada qaybteed ku raacsan tahay mise meel dhaxaad joogta أنا وحنا أمسنا هي سومالي لو كن إني كبدينين. صح. حاجة سيتي كمركو مايرك وكفيرنا يو مايرك وحوفيريا dadka uu la kulmo ama statistics la soo gudbiyo annaga waxaad arkaysaa hal guri in ay ku nool yihiin 20 dhalinyaro ama 20 dhalinyaro 10 dhalinyaro camal marka guri ahaan gurigaas satiga wuxuu ugu duwaan gashan yahay hal qof inuu ku qoran yahay ama laba qof ku qoran yahay marka sida marka waxa kale oo ognahay sidaan u wada noolnahay ana had gurigeyga kaliya reerkeyga markii laga soo raabo 7 qof oo kala ay la nool marka satiga ma ogata ayada فهمت لكن وحن كجول جاري كرنا وان كلا داتنا هاي وانا جوان شغنا يدات في عن وان هاي أو قاعد قدام في عن لكن إنير أو سجلتني ما أنا هيسا هدي أن نصوص الله أو كل ماذا عم بدنا أو أن لفل قلنا نرش هل كان وان كذا دعين كرنا ستة إمام الكمجال هذا تريد أن نحوج بدن نكون والله إني أقبلان مركا وقتي أنا قاعدة نسا أنا قال لفتنا أسلف قرنا أسوس ونقرنا أو حياة بدن أسكب بدن لها بنولات كنا أيان أن رجينا يا هدول مسين مركا الله حلو.
daawadayaal waxaanu joognaa Brooks waxaa ila fadhiya gudoomiyaha jaaliyadda Yuusuf Xasan waxaan ka wareysanaynaa xaaladda jaaliyadda maanta ciid bay ahayd aad baa loo ciiday jawi aad u qurux badan baana lagu jiray carabka waxaad ku dhufatay gudoomiye waan kala daadsanahay dad tira ahaan kooban aad badnaataan tuul ahaan markii loo fiiriyo laakiin 2,000 iyo la leeyahay waa dad kooban marka maxaa keenay inaad kala daadsanaataan dhowr waxaan u saameynayaa Soomaaliya annaga ku yeetay warta dad inta badan isku toosan ma lihin ma burburkana sababna waa ma deegaanka cusub aan joogna sababna waa ma garasho la'aan iyo aqoon la'aan noo geynaysa Soomaaliya meesha joogtaba ma aruursana haddii hadda qofka Soomaaliga ay weydiiso adeeyd warkala waxaan wada qabsano qofka dib u boodaya waa inuu qof kale soo wareysto waxa aad sheegayso inuu soo dharaandariyay noqonaysa waa cilad annaga aan la noolnahay aan rabno inaan ka gudubno marka siyaabo badan aan u kala daadsanahay laakiin umana xumin hadda maanta oo kale waad aragtay aad ka sheekeynay muuqaal baan ka soo duubtay gabdhihii dumarka Soomaalida magaalada degnaa ciidan u kacay abaabulay oo hool fiican qabto inuu ku amaanay ku mahadsan yihiin marka haddii gabdhaha aan kaga dayano oo diiwaan kaga dayana waan sameeyna haddii aan joogtay inoo noqoto waxaan qabaa in kala daadanaasha aan sheegay ay meesha ka baxayso waxay noo toosan ay isku aadi doonaan marka sitigna aan la falgalno cududeeni awood aan leenahay oo dadka aan la noolaano aan meel aan geeni karno haddii aan leeyahay magaalooyinka ay Soomaalida ku nool yihiin waxaa lagu eedeeyaa inay ururo badan leeyihiin adigu dhinaca kale ka wareegteen oo waxaad tirahdeen ururba uma baahnin jaaliyad baan ahaanaynaa anaga isdabarayno marka way adag tahay hadda Soomaalida hadii looga sheekeeyo 2,000 oo qof oo Soomaaliya oo meel ku degan baan wali aan wax register gareyn oo ayaga hawlahooda qabsan sida gabdhaha maanta u qabteen arintaas maxaad u yeesheen seed sarabtaan uga gudubtaan